halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC da barnaamijkii dunida iyo maanta ayaa toos u dhageysanaysaan sanadkan 2018 balse marka hore xukuumadda Soomaaliland ayaa golaha baarlamaanka waxa ay hor keentay miisaaniyad sanadeedka soo socda oo ay ku jiraan cashuuro dheeraad ah oo lagu soo rogay xarumaha warbaahinta qofka raba inuu TV ama muuqbaahiye furto waxa uu bixin doonaa $15,000 muuqbaahiyada gobolkana waxa lagu furan karaa $10,000 waxaana sanadkii ay bixinayaan $5,000 tiifiyada dibadda laga leeyahay kuwa maxalliga ahina $3,000 ayay bixin doonaan waxa sidoo kale iyaguna cashuuro la saaray website-yada wargeysyada xarumaha muuqaalada duuba wasiirka maaliyadda ayaa warbaahinta la hadlay waxa aanu sheegay inaanu isagu keenin cashuurtan waxaanu sheegay oo kale inay tahay mid ka mid ah dhanka wasaaradda warfaafinta oo cashuurtani ay tahay wax soo saarkooda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer Faysal Cali Waraabe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in la saaro warbaahinta cashuuro aanay qaadi karin waxa uu warramay wariyaha BBC da Sidiiq Burmad saxaafadda Soomaaliya waa aad baan u amaanaya لأنه waxay ka bilaabeen zero iyo cidna aan gacan ka helin meel maanta wada ogta waxaan leenahay strong adag media aad u fiican baa leenahay inkastoo qofku xogta dhalishood leeyihiin sharci marka la sameeyay marka doonaysa in dawladdu cashuur qaado waa sharci la soo saara sharciga saxaafaddu muu yaala sharci saxaafadda la soo saaro kaasaana ku qeexaya marka lagu dhaqmiyaa laakiin koon sharci jirin in qof iska fikiro oo ilaaho hebel inta laga soo adeegto waxay tahay inay taqaal tahay idaacadeena maanta ma shaqeyso aragtay haddii marka idaacadaha shisheeyo ay yiraahaan Soomaaliya waa lagu kala tagay ciidamadeenu warkood maqlaan soo khatar ma mar aadna ummadaada warkaaga gaaray kuwii gaarsiinay haddana culays la saaro waxay aad u falxuntahay xarumaha warbaahinta dhaqaale xumo badan bay ayay ka cawdaan ama ba haysataa haddii tani ugu biirto maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa way xidmayaan media way naga baaba'aya wadan aan media lahayn wadan ma intaas qof ba ka shaqeeya way shaqo beeliya TV-da waaweyn inta qab shaqaaleeyeen wada aragtay in la control way fiicantahay in leesan loo sameeyo way fiicantahay oo dee wax kasta waa in sharci loo sameeyo laakiin sharciga saxaafadda ka horeeya ee baarlamaanka hor yaala wadan lagu koriyo nuug lagu koriyo wadan waxa lagu koriyaa cashuurta lagu koriyaa dhaqaalo kor loo qaado development kor loo qaado meel kaas oo la sameeyo laakiin intii ay tahay hadda nuugtidu waa dadku collapse garoobaya wadan ma jirto intii ay hore ku siin jirtay ma qaar ka la abuuraa oo bixin kara cashuur hadda laakiin kuwii asal imaka inta meherad xiran oo because cashuur aan qaadi keen lagu sameeyay oo 2018 lagu sameeyay inta ka badan haddiiba ay idinku muuqato in cashuurahan yihiin kuwo keeni kara in ay xirmaan xarumaha warbaahintu idinku maxaad soo jeedinaysaan wasiirka information la hadlana waxaan maahay adeeray haynaga saxaafadda haynaga xiran waa ceeb saxaafadda la xiran sharciga la sameeyo ha ku dhaqmeeyo kuna hadda leesanka laga qaaday qiimihiisa waa inta TV-ga waa inka website-ka waa inka وين جريدة وأنت وين الشرع لا سمية لكن يمكن محول عكسري محل الله عكسري أنا قلت راعية شرعية هي بالمجرم مجرم شرع لا سمية إذا عدينا هلكي وعب إنه يدك إذا عدك ليك يستان أو إنه ولما هستالين هو وعب هذا الكاسنا وحاود بإنجنير فيصل علي ورابي وحاورمي وريها BBC دا صديق برمد